xukuumadda Soomaaliland oo hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa ay soo bandhigtay muddo 120 maalmood ah waxyaabihii uu qabsoomay. wariyaha Cabdifataax Cismaan ayaa warbixintaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray. wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdullaahi Gurib uu heliyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo waliba qaar ka mid ah shaqaalaweynaha wasaaradda warfaafinta ayaa ka soo qayb galay xaflad lagu shaacinayay 120kii cishe ugu horeeyay waxyaalihii uu qarsoomay xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isagoona tilmaamay waxyaalihii uu qarsoomay xukuumadda Soomaaliland 120kii cisho Cali Maxamed Cali. dhankiisa wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdullaahi Gurib barwaaqo oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay maanta ku beegan tahay 120kii cishe ugu horeeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. waxaanu sheegay in xukuumaddu diyaarsay waxqabadkii 120 cisho waxaanu sheegay in waxqabadka xukuumadda ee 120kaasi cisho ay caawa guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland ka daawan doonaan TV-yada ka howlgala deegaanada Soomaaliland. waxaana ka mid ah saameynta aynu ku keenay in muxuu ahaa ay noqoto siyaasadda madaxweynaha iyo dawladdiisu ay noqoto mid dawladaha qaarkoodna gelisa warwar aan sal lahayn dawladaha qaarkoodna ay ku farxaan run ahaantiina campaign markii laga soo baxay ummaddeena oo kala qaybsanay ay noqotay 120 maalmood aad iyo aad dadkii isugu soo dhaweysay wadadii aynu soconayna maanta waxaan iclaaminaynaa in la soo diyaariyay waxqabadkii xukuumadda 120kii maalmood ee u horeeyay ee ay jirtay caawa haddii eebayda ayaa laga baahin doonaa dhammaan TV-yada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka howlgala ha ugu horeeya ka gobolada iyo degmooyinka dadka aanay gaadhin ama aan haleelin waxa la gaarsiinayaa oo ay akhrisan karaan wargeyska loo yaqaan Hilaadse oo isaguna dhammaan inta aad ku arki doontaan TV-ga lagu soo koobay oo ay ku qoran tahay dhammaan waa la gaarsiin doonaa degmooyinka iyo waxyaha dalku ka kooban yahay. maanta laga bilaabo wixii ka dambeeya dawladdu hawsheedii ama waxqabadkeedii wuu dhaqaaqay. tii hore waxa ahayd tirtirsigelin iyo ishabayn iyo isguubaabin. hadda waxa ay dawladdu bilowday shaqadeedii rasmiga ahayd dhan kasta oo ay tahayba. xukuumadda Soomaaliland ayaa 120kaasi cisho dadaal ballaaran ku bixisay sidii dadku beeraha wax uga soo bixi lahaayeen. sidoo kalena waxa ay dhiirigelisay wax soo saarka beeraha isagoona wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed dadaal weyn ka muujiyay arrintaas isla markaasina iclaamiyay in qodaal muddo socon doona loo sameyn doono guud ahaan beeralayda kala duwan ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland. waxaana la filayaa in dadaalka waxqabadka xukuumadda madaxweyne Biixi oo halkaasi ka sii socdo. Cabdifataax Cismaan, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.